gaadiidka booliiska ee magaalada muqdisho ee dhowaan ugu soo gabagabeeyey shirkii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen saraakiil militari oo ka socotay federaalka Itoobiya ayna ka soo qayb galeen madax ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo safiirada dalalka Itoobiya iyo Yemen u jooga Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar kale oo ka mid ah odayaashii ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed iyadoo dhammaantoodna la guddoonsiiyey hadiyado ay bixiyeen saraakiil ka socotay federaalka Itoobiya. mudane gabre oo ka mid ah mas-uuliyiinta ciidamada Itoobiya ku sugan magaalada muqdisho oo xafladaasi xiriirinayay ayaa sheegay in xiriir wanaagsan ay leeyihiin dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyo shacabka labada dal, taasina ay muujinayso sidii uu yiri dadaalka ay ugu jiraan Itoobiyaanku nabad ka dhalata geyga Soomaaliyeed, isagoo intaasi raaciyay የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ሕዝብና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ራዕይና ህልም ፍላጎት haddaba aragtida ama himilada ay qabto dawladda Itoobiya, shacbiga Itoobiya, ciidamada qaranka Itoobiya እርስ በርሷ የምትናቆር ሶማሌን ሳይሆን ተቻችላ የምትኖርና እድገት የምታረጋግጥ ሶማሌን ማየት ነው። waxay ku hamiyayaan inay arkaan oo Ilaahay tuso Soomaali oo aan kala qaybsanayn, oo aan islaynayn, oo aan isdilayn, oo si nabadgelyo ah oo walaaltinimo ah ku wada nool horumarna gaadha. እንደ መከላከያ ሰራዊት haddaba ciidanka qaranka difaaca እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት iyo dowladda Itoobiya, shacbiga Itoobiya ዳግም ማየት የማንፈልጋቸው የሶማሌዎች እርስ በርስ መጨፋጨፍ፣ dagaal sokeeye oo Soomaalidu ay isku baabiinayso, isku laynayso inaan dib u aragno ma rabno. የዋርሎች ቁምና ቁጭ በል ማለት qabqablayaal dib u soo noolaada oo kala xidhxidha, kala qaybqaybiya, shacbigana maaragtay cadaadiyana inay dib u soo noolaadaan iyadana inaan aragno ma jeclin. saddexaad ee kale eenaan jeclayn in dib u soo noolaadana waxa weeye al-shabaab kooxda la yidhaahdo oo cadaadinaysa shacabkana dib inay u soo noolaato iyadana ma rabno. safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya magaalada muqdisho isaha shaawar oo gobdow ka ahaa xafladaasi ayaa waxaa ka hadlay safiirka dowladda Yemen u fadhiya magaalada muqdisho Axmed Xamiid oo sheegay inay gacan ka geysanayaan faham dhexmara Soomaalida gudaheeda. بهذه المناسبة العظيمة munaasabadan aad ka qiimaha badan وهو تشكيل الإدارات المحلية داخل العاصمة مقديشو oo ay u dabaaldegayaan maamulka gobolka Banaadir. هذا الإنجاز الرائع taasoo ah guul aad u weyn سيحقق الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو. أنا رجعنا runtiina ay qayb weyn ka qaadato ku soo celinta nabadda magaalada caasimadda Muqdisho. نشكر القائمين على هذا الإنجاز العظيم. waxaan runtii aad ugu mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay arrintaas. Colonel Weyto oo ka socday federaalka Itoobiya hadiyadahana bixinayay aan la shaacin waxa ay ahaayeen marka laga reebo muuqaalkooda sare oo sidan ahaa. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha siyaasadda Cabdullaahi Xasan Gane Firimbi oo xafladaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay dowladda Itoobiya gacanta ay siiyeen dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka Cabdullaahi Yuusuf iyo Meel Sanaawi amalaadeen waxqabadka iyo walaaltinimada saaxiibtinimada dheer dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya oo ah mid muuqato taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka General Maxamed Warsame Darwiish oo xafladaasi ka hadlay ayaa mahad celiyay ciidamada Itoobiya kadib waxa uu halkaasi ka sheegay in madaxda dowladda federaalka gaarka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu 15 daqiiqo ka hor xilligaasi ay xafladdu soconaysay uu u magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo ee xukuumadda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya Mudane Nur Cadde iyadoo kadibna jawgu isu bedelay farxadan.
sidoo kale xafladaasi lagu xusayay iskaashiga labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya iyo millenniumka Ethiopia oo ay goobjoog ka hayeen qaar ka mid ah ciidamada Ethiopia kuwa booliiska Soomaaliyeed iyo haweenka gobolka Banaadir ayay dumarka Soomaaliyeed ay ku labisnaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu aad ka u qadariyaan ee bilicda haweenka aad u soo saara idoo dumarkaasi ay luxayeen calanka astaanta ummadda Soomaaliyeed u leedahay ayna kooxda baanbayda ciidanka booliiska Soomaalida ee muusigu iyana ay tumayeen sidoo kalena baanbayda ciidamada federaalka Itoobiya ayaa iyana ku soo bandhigay halkaasi idoo marti sharaf badani ay daawanayeen ayna hareer joogeen ciidamada Itoobiya oo saaran gaadiidka loo yaqaan Uralka oo ay ku caanbixeen tan iyo markii ay soo galeen ciidamada federaalka Itoobiya gudaha dalkan Soomaaliya dabayaaqadii sanadkii tagay iyagoo taageeraya dowladda federaalka ku meel gaarka Soomaaliya oo ay siyaasadda isku hayeen xilligaasi golihii maxkamadaha islaamka oo ay ka talinayeen muddo 6 bilood ah koonfurta Soomaaliya inteeda badan haddaba ciidamada Itoobiya ku sugan koonfurta Soomaaliya oo lagu sheego inay gaarayaan 52,000 oo askari oo intooda badan ay Muqdisho ku sugan yihiin ayaa dagaalo lagu hoobtay la galay kooxo ka soo horjeeda joogitaankooda gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dagaaladaasi ay sababeen in dad rayid ah ay ku geeriyoodaan kuna dhaawacmaan ayna qoysas badan ka barakacaan guryaha ay ka deganayeen xaafadaha gobolka Banaadir oo ay ku dhibaataysan yihiin daafaha magaalada Muqdisho halka qoysas kalena ay u carareen gobolada dalkan Soomaaliya kuwa kalena ay u hayaameen dalalka Yemen iyo Kenya oo ay ku silcsan yihiin xafladan ay soo qaban qaabiyeen ciidamada federaalka Itoobiya ayaa sare u sii qaadaysa niyadda ciidamadooda ku sugan koonfurta Soomaaliya inkastoo aanay u riyaaqayn dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaato ay u geysteen una arka in dalkooda ay xoog ku joogaan oo ay weli xusuustaan dagaalkii dhexmaray sanadadii 1977 ilaa 1978 dowladihii Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkii dhexmaray oo ay kala hogaaminayeen madaxweynayaashii xilligaasi Allah u naxariistay sareeyo gaas Maxamed Siyaad Barre iyo gaashaana sare Mengistu Haile Mariam iyadoo sida lagu xusuusto taariikhduna ay ciidamada qalabka siday ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay sutida u qabteen ciidamada Itoobiya oo ilaa iyo magaalada Dirdhaba ay gudaha u